الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا ليال وحان جوجنا الدنيا، وإن أوغاتا الدنيا ذو وحيتا وحان جوجنا دار دمانيسا oo jid la marahayo la goynaya waa meel waxa cusub ay duugoobayaan kii dhalinyarada ahaana uu gaboobayo mulkigeedii iyo madaxnimadeeduna ay tahay mid ay dhamaanayso khayrkeeduna uu yaraanayo midkan noolina uu yahay mid dhimanahay. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu ahaado mid garanaya adduunyada waxa uu u joogo iyo xaqaarada iyo siday u liidato ya ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala sida ay ka tahay. waxay yidhaahdaan dadka xikmadda badan al-ayaamu sihaam wannaasu ahdaaf. maalmuhu waxa weeyaan xabadihii iyo gamuunkii iyo leebkii weeye, dadkuna waa hadafka la tooganayo weeye. maalmuhu waxay la mid yihiin xabadda oo kale, meesha la tooganaya oo hadafka ah oo la shiishayaana waa dadka. walwaqtu waqtiguna waxa weeyaan soconahaya, waqti kastana waxa weeyaan wuxuu la mid yahay gantaal kugu dhacay, ileen gobol adiga kaamida ayaa go'ay. waqtigaagii baa soo gaabanaya mar kasta waxa weeyaan oo waqti uu kaa tago cimrigaagii baa soconahaya oo gurmay. dadka ahlu cilmiga ah oo caqliga ilaahay iyo cilmiga ilaahay iskugu daray markay ogaadeen adduunyada ilaahay inuu liiday, dadkiisa ateecana uusan amaalmarin oga dhigin ee janno uu ugu talagalay inuu ku amaalmariyo, ilaahay agtiisana aysan ka dhammayn garab kaneeco, rasuulkuna uu ka zaahiday, uu zaahid ku dhex ahaa, fitnadeedana dadka oga dhigay. markay sidaa u akhristeen oo u ogaadeen akaluu minhaa qaliilan waqaddamuu kaiira. wax yar bay ka cuneen, wax badanna waxa weeyaan waa hormarsadeen. waxay cawradooda ku asturtaan iyo waxay baahida ka cunaan ayay adduunyada kaga kaaftoomeen, intii kalena waa hormarsadeen. maxaa yeelay nadaruu ila addunyaa bicaynin faaxisa facalimuu annahaa faaniya. adduunyaday waxay ku egeen aragti dheer ayay ku egeen, markaasay waxay u soo baxday inay dhammaanayso. dadkeedaa dhammaanaya, daaraheedaa dhammaanaya, maalkeedaa dhammaanaya, mulkigeedaa dhammaanaya, madaxnimadeedaa zuulahaysa, dhammaan way zuulaysaa, wayna dhammaanaysaa. aakhire ayay eegeen oo fiiriyeen, markaasay waxay ogaadeen inay tahay midda baaqiga ah oo aan laga dhimanahayn lagana dheeraanahayn inay tahay bay ogaadeen. adduunyadii waxay ka dhigteen markaba ay ku gudbayaan bay ka dhigteen, sidaasay oola macaamileen oo la dhaqmeen. amiiru lmu'miniina cumar ayaa wuxuu diray abudardaa, wuxuu u diray dimishq inuu diinka baro oo mucallim ahaado oo maamulo ayuu u diray. markii uu gaaray reer dimishq uu u tegey ayuu wuxuu ku arkay dadkii adduunyadii raacay oo adduunyadii ku milmay ayuu ku arkay. markaasuu dadkii iskugu yeeray oo masaajidkii ugu yeeray, markaasuu wuxuu u jeediyay hadal dheer oo qiimo badan buu u jeediyey. wuxuu ku yidhi ahla dimishq
أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء ولا له الدين كاتهين درس كيدين كدرس كيجيئة أعدادك ولا ربعين الإسلام كوجر جاران وأيدينك هذا الدير أيو أشيدي مركز وحى كم إذا هذا الكسب ما اللي أراكم علماء ما اللي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ورمحان كوجو أركيا إلى علماء بابا أيام كوني جاهلين تانا إن وحبب برهين ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون سو ما أركيا إنا تين كو جمعنا هي وحين نعنهين وتبنون ما لا تسكنون لسه هي ودار أي صندقنا هين وتؤملون ما لا تبلغون هذي الديلنا إياه وهم يقولوا يا هاي ميل دير وأي سنجارة هين مركز وشيء غيري وما ذايدين كوريي أيها هذي الديل كان كل عاي oo firfircoonida iyo nashaadka ku kadsoomay oo adduunyadan dhisay hal mar bay wixii ay jamciyeen waxay noqdeen halaag hididiilkoodina wuxuu noqday mid been ah guryahoodina waxay noqdeen qubuur bay u noqdeen markaas wuxuu ku yiri هذه تركة عاد يا أهل دمشق reer caad waa kuwaan wixii ay ka tageen adduunyada waxay ka buuxiyeen maal يا أولاد بالدنيا كبوحيان يا مدحنمو فمن يشتري تركة عاد اليوم بدرهمين وحي أي كتجين ريعان ما أنت يا لبد درهم كوي بسنة عيد كوي بسنة يسمى عيد كوي بسنة يسمى محيا لو حلاك سمي أو ماضي أو بابا أي بين نقطة وهكذا الدنيا ولذلك النبي قالنا صلى الله عليه وآله وسلم مال انتو صيحدي ayaa xasiirkii uu ku seexday ayaa waxa weeyaan feerihiisa dhinaciisa saameeyay markaas ay saxaabadu waxay ku yiraahdeen dirin fiican oo gobol fiican daan ku sameeyna rasuulka ilaahay oo ka war markaas ay nabiga maali wali dunya aniga iyo adduunyo maxaa iskuna ma ana fi dunya illa karakib istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha adduunyada waxay ila mid tahay buu yiri qof musaafir oo geed hoostii harsaday oo wax yar ku nastay ka bacdina ka socdo adduunyadu sidaas ay aniga ita wax allaaliya wax la ii sameynaya ma jirto kuna mashquul mahay ilaahi subhanahu wa ta'ala adduunyada wuxuu ku tilmaaman lacib iyo lahw iyo ziina iyo takaathur iyo tafaakhur inta ba ilaahi waa ku tilmaamay lacib ka lacib الصبيان way caruurta mid ay ku ciyaaraan oo kala weey لهوي كلهوي الفتيان ذاتك واوي مد كلهوي waxay ku mashquulaan oo awey زينة كزينة النسوان وحيالها haweenku isku qurxiyaan oo kala weey تكاثر waxa weeyaan tartanka iyo wax badsiga تكاثر الأقران dadka isku daada ah sida ugu tartamaan wax barashada iyo horumarka iyo sidaas oo tartanka iyo faankaas weey وتفاخر بينكم dhexdiinada waxa weeyaan faan oo waxa weeyaan wax la kala badsanayo oo la isku faantamahayo ayada dhan baa waxay tahay faankaas iyo quruxdaas iyo cayaartaas iyo lahwigaas ayaa ilaahay ku tilmaamay markaas ilaahay wuxuu ku shabahay kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama waxay adduunyadu la mid tahay roob da'ay roobkii markuu daay wuxuu soo saaray cagaar aad u qurux badan iyo doog wax yar ka bacdi cagaarkii waa isbedelay wuxuu noqday mid jaalla oo midabkiisiba doorsoomay wax yar ka bacdina wuxuu noqday xaaba ayuu isku bedelay wahakada dunya bilowga hore way kala qurxoonta way dhaldhalaalaysaa qofku markuu xoogaa soo weynaadana waxa weeyaan waxan dib u laabanaya wax yar ka bacdina wuxuu noqonayaa wax sariir yaala وسيدا لو قدقدينها أيو نقني الدنيا سيدا مركع أي تهي إلهي سبحانه وتعالى وحيري في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان آخرة وحاتر عذاب درن وقف في الدنيا كوكة سومة وحوين لو عذابي وحاتر مغفرة يدم دافية جنة إلهي سبحانه وتعالى قف في الدنيا سيدا أفهمه إلهي سبحانه وتعالى وسيدا سبت بادني
أسويدينو أين سكانها الذين بنوا مدائنها عاودت مقالوين كذا للصي وشقوا أنهارها وبيد السمية وبيد الدلاعية وغرسوا أشجارها جيدها أطلالوا بيرها أسمية وأقاموا فيها يسيرا إن يرنا كنا قادي ومعاصدة كل حسمية أين تتكاسي حقي كدن بي ماذا صنع التراب بأبدانهم مقار كودي حملوا دي التراب يعيدوا محيكو صبيس والديدان بعظامهم وأوصالهم دي حريقوا مركوا قالي حملوا دي يهيلم كودي ودحق قالي محوكو السمي فإذا كنت مناديا فنادهم هذا قبوله صومر تدبلوا نواع ومر بعسكرهم ماشي دقيهم بالمر وأي تشوغا وانظر إلى تقارب منازلهم قل يهودوا سيدا اسكو قد ودويهم بالفيري داريه أي لهايين الدنيا يوحي أي كلا دقنايين إيا مid walba intuu dhul goosto haystay bal waxaad eegtaa dadkii naga tagay oo aynu naqaan meesha ay dageen bal eeg daarahoodu sida iskugu dhow yihiin eeg was'al ghaniyahu ma baqiya ghinaa bal midkeedii ghaniga ahaa weydii ghaninimadii muxuu ka hayaa was'al faqirahu ma baqiya min faqri kii faqiirka ahaa weydii faqrigii muxuu ka hayaa واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون لسانك يا عربك أي كوها الجيران ومتكم مامول الجيران ويديه حاجاكو الدنبي وعن الأعين التي كانوا بها يبصرون إنها أي وحكو داوان جيران وحكو أركي جيران حاجاكو الدنبي واسألهم عن الجلود الرقيقة والأجساد الناعمة وحاد ويديسا وجه يدي قروح ضبطنا إيه مقارك يا جسمي الناعم كاها يحملوه دي بالماشي يكون دنبيان ويديه أليسوا في منازل الخلوات والفلوات ميين ندت كاسي أين ما أنت كسجنين بهجويو يدل عطلاه ميين كسجنين أليس الليل والنهار عليهم سواء هبينك يا مالكو مد السمن ميوسن أكتو ذا كاهين قف قالك أكو شرا هبين ما هي استمالنا ما هي أليسوا في مضلهمة ظلماء مقدم لو قندل ميسن كل حشري وقد حيل بينهم وبين العمل أيجا يا عمل كودين واكل القوى بلو فيرس فكم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية قبر قروح بدن والقروح بدن ووجه قودون نغض مثل ماضي فربضنا بلو فيرس أفكودي وحب بوحيي دعانك كصوبها يا جسمي جودا يا أورك كصوبها هي سيده أبا أي وحي نقدين عرون أي نقدين ودبت دواب الأرض في أجسادي بهالذي يركاها وتحريق يا وحي لم يتكاها يا جركودي يحملوا ذي قلقلي أو قاضي فتفرقت أعضاؤهم مركز حبين وكلا دعم سوى كده حبل أيوك للضعتين والله كذبنا ما أين النجانن حتى عادت العظام رميما إلى حبنه اللي فيه صهر أي نقدين كوبا ليوبي أو نماضي أعيدكم بالمي إلى أي نقدين فارقوا الحدائق بيروه دي ويفارقين قريوه دي ويفارقين أحبه دي صاحبه دي ويفارقين ضروق دي الشوارع دي أي مري تشرين ممريان تزوجت النساء هوينكي ولا قرسد عرورتينا حوليه بين لوريقين حوليه بيكون مشغولة يانا دحلة دين أيغانا هالكاسا دحرو كعوني أو أي كل مادين دعان كودي هيلي بكودي روكا دحليسا كل ماد كواسي ميسا قرابنا لأهاي ميين الرحب يا أهلنا لو داقين ميين المال والبعين قادين أيغو فحمي يدحوه الدنيا أنك قادين أو الدارود أو هنتدود أو مقعود هل مرأة يوسولي أو بابعي يا ساكن القبر غدا برهنك الدقى يا دار تاسو ما الذي غرك بالدنيا محا الدنيا ذاك وكو كديه وحاطها أذوقنا برهنك للدقى يا أياتها ما لقى صهاد لماهن ما لقى عاون كرم ماهن ما اللي أقيا وحا كسوغن تهي ماهن
meel lagu soo gurman karo ma ahan meel waxa ku haysta sheegan kartid ma la hawla wala quwwata illa billah wuxuu nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam inna mat'am ibn adam ju'ila mathalan lid-dunya war bani aadamku waxa ay cunayaan ayaa adduunyada tusaale looga dhigay wa in qazzahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir cunada aad cunaysaan laftigeeda adduunyada tusaale looga yeelo si kasta haddii bani aadamku cunada uu cunayo ugu tafannuno oo nuuca ugu wanaagsan uu sameeyo bal waxaad eegtaan baa nabigu yiri cunadaasi waxay ku dambaynayso musqushu geenaya sankuuna ka qabsanay gadaal uma eegi karo waa cunadii ugu fiicnayd oo sida ugu fiican loo sameeyay weey وهكذا الدنيا باسبيتها وحويان حقيقته الدنيا sidaas nabigu ku miitaaliyay inay tahay wax kasto aad cuntid iyo wax kasto aad dhisid waxay ku dambeynayaan kharaab iyo damaar iyo dhamaashay ku dambeynayaan fahmadillah qofka maanta amalku u furan yahay oo waxa weeyaan fursada haysto ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahad ogow xaqiiqada maalmaha kamid ay kugu iimaanaysa masaacada kadiba ما مال بك بعدي با وحي آد عمل فلان لهيد سميسو بعض أهل العلم با وحي يرادين قف با أورنا يا عمل كوانا أكسن بان شعلا منا عمل فلاهي وحان ربا إنا وح قبصدو إنا وحر مرصدو أيان دونا يا منا كنا قاقي نيدو كتعليا وابين هدو تعليا هي وكنا قاقي لا حقيقة وحوي وكنا قاقي ودريمي علي بن أبي طالب وحديه تري ارتحلت الدنيا مدبرة الدنيا دي واررتي وين الدبتشيدس وارتحلت الآخرة مقبلة آخرنا ويسوق جورتو ويصاررتي وين سوق بيرس ولكل منهما بنون مدول من وحي الله هاي الماء يلا الدنيا دون ورصاء يلا هاي آخرة دون ورصاء يلا ذاتك الدنيا الراعي وذاتك المي آخر الدنيا دول ذاتك عملك ولا أحسن يا خيرك كل حجوجانا وإلمها آخرة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا والعرورة آخرة كم من نقطة وآخرة وعمل فشاع والدنيا الآن راعٍ الدنيا إلمها كم من نقطة اليوم عمل ولا حساب ما أنت عمل بالصبينية ولا عمل فلانية لكن حسابي ما جرت وحكوا حسابنا يا ماله شر يا خير وحاسب يسد والوجود وغدا حساب ولا عمل برينا وحويان حساب أنا عمل لسعوي عمل كديب أنا لقى سيح كريوي بري وحساب تاس وحلو نكتايا للدنيا نبي قال نوح شيء صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ذو هدي إلهي أكيد زكاة ما الله يتقرب كناعه ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال صلى الله عليه وسلم هل قال كوبيا كبعد وحي قال ذو قعد بيان وأقول راح يصنيان إلهي أكتي زي زنقرب كان يعاكبا ضمين وين قفكوا حساب تمذكقا قفكوا وحو كعب رقاتا هدو النول يا واحد دعيا وحا أو أركيو وحا أو دريمة يدروس بكزيات سنيا وحا أكتي وحي دعي أمدي هلاك سنتي أو بابعضي أو كوي ديمها لها يكوي لقولها بوغاكتي أي كوقرنايا لغا يابا يسوحبا كما أولم وساعد واحدة لماتي dad badan oo tamanninaya inay wax qabsan doonaan oo khayr samayn doonaan xajkii uu aadi doono masaalix iyo khayrka oo xoolo badan ku bixin doono wax badan tamanninayay waxa weeyaan arintooda waa soo afkood ayagiyo dhuxulaha la qaaday xooloodina waa halaagsan maanta adigu waxaad haysataa fursad ku cibro qaado toobad hormarso wixii khayr ah iyo waxa hormarsan kartay hormarso ha isdihin bariya saad dambiya saakuun baad ka dhiganaysaa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين